gudoomiyaha gobolka Saraar Axmed Cali Nuur oo muddooyinkii u dambeysay safar ku maraya degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Saraar ayaa maanta safar xaqiiqadiisa ku tagay degmada Dhanaan oo 180 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga toosan magaalada Caynaba. Wafdigan uu hogaaminayo gudoomiyuhu ayaa safarkooda ka bilaabay deegaanka Gargureed oo warbixin ka dhageysteen odayaasha iyo macallimiinta deegaanka Gargureed. Gudoomiyuhu wuxuu ka dhawaajiyay in xukuumadahan diyaar u yihiin in ay wixii karankooda diyaar u leeyihiin bulshada gobolka Saraar. Inta kadib waxa uu gudoomiyuhu ambabaxay degmada Dhanaan oo si ballaaran ugu soo dhaweeyay maamulka degmada Dhanaan oo ardayda dugsiyada iyo haweenweynaha degmada. Gudoomiyuhu waxa uu kulan ballaaran la qaatay maamulka degmada Dhanaan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horreynba gudoomiyaha degmada Dhanaan Maxamed Furre ayaa ka dhawaajiyay in shacabka degmadani bacadka u taagan yihiin madaxdooda xukuumadana ka codsanaya in la soo gaarsiiyo baahiyaha ka dhiman degmada maadaama ay tahay digreeto madaxweyne. Ugu dambeyntii waxa soo afmeeray munaasabada gudoomiyaha uu dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay gobolka Saraar Axmed Cali Nuur waxaana ka mid ah hadaladiisii gabi ahaantii dadka gobolka uu galo oo aan meel gaar ka iman marka hore waxaan idinku dardaarayaa haddaad degmadan Dhanaan tihiin in aad idinku horta marka hore isku tiirsataan kale uga yimidna ma jirin waxa weeyaan waa inamada yaryar iyo hablahaasi oo aqoontooda iyo cilmigooda lagu dadaalo kuwaas baa berri kuwa wax qabanaya wadanka noqonaya kuwaas baa noqonaya kuwa madaxda iyo wasiirada iyo gudoomiyaasha iyo gobolada iyo meerada noqon doona hadii kuwa lagu dadaalana mustaqbalka maanta Dhanaan iyo degmadu waxay noqon doontaa mid aad iyo aad hore u martay kuwaas waxay noqonayaan ummadda kuwa hagi doona. Isku soo wado safarkan kormeerka uu ku marayo gudoomiyaha gobolka Saraar deegaano badan oo kamid ah gobolka Saraar ayaa ka muuqata abaara aad u xun. waxa kale oo gudoomiyuhu kormeer ku tagay deegaanka Badweyn. safarka gudoomiyaha ayaa waxa ku helinayay gudoomiye ku-xigeenkiisa Ibrahim Jaamac Maxamed iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar Jamaal Cabdi Jaamac Maxamed Bashiir Nuur Greek Home Cable TV Caynabo.